halkani waa BBC oo idinkaga imaanaysa London aadna ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada barta Facebook aynu ku leenahay oo si toos ah idinooga daawanaysaan iyo barta internetka ee bbcsomali.com. maalin wanaagsan jimco wanaagsan sida aad u dhantihiin khayarta hawada inaga dhageysanaysa iyo kuwa inaga daawanaya waa jimce 13 bisha April sanadka 2018 goordhow waxaynu guda gali doonaa barnaamijkii dooda jimcaha asaatee wararka caalamka waxa ugu waaweyn Ruushka oo sheegay inay hayaan cadeymo aan laga hor imaan karin oo muujinaya in hubka kiimikada lagu adeegsaday wadankaasi Suuriya ay ku lug lahaayeen sirdoon dibadda ah. waxa kale oo idin haynaa wararka ku maqli doontaan la taliyaha ciidamada ammaanka ee Britain ayaa deemo cusub ka soo saaray qaabka ciidamada gaarka ee Ruushka loogu tababaro hubka kiimikada. barnaamijka dooda jimcaha maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa khilaafka iyo xiisadda dhinaca diblomaasiyadda ee ka dhex curatay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. dhageystayaasha qaarkood fikradahooda ayaynu eegaynaa oo barnaamijka qayb ka ah. aniga waxay la tahay arrintan Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta in ay tahay arrin lagu degdegay. dhageystayaasha qaarkood waxayba qabaan in arrintan ay ka bilaabatay wuxuu ka bilowday kolkii dawladahaasi ay la coloobeen dalka Qatar dhaxdhaxaad bay tiri waan noqonayaa taas horta Imaaraadku ugu cadhooday. qaar kale oo ka mid ah dhageystayaashana su'aalo ayay qabaan balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah xiriir ganacsi oo aad u weyn ayaa kala dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka sidee wax looga qaban karaa in aanay saameyn ku yeelan khilaafkani. arrimahaas dhageystayaasha ay ka hadleen iyo mawaadiic kale ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayaa barnaamijkaas ku soo dhaway. waxaan ahay mawlid xaaji cabdi. barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka arrimaha caalamka ee BBC-da. cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo warramaya. mahadsanid mawlid xaaji cabdi. ruushka ayaa sheegay inay hayaan cadeymo aan laga hor iman karin oo muujinaya in hubkii kiimikada watay ee loo adeegsaday Suuriya ay ku lug lahaayeen kooxo sirdoon ah oo dibadda ka yimi. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ma uu caarabaabin dalalka ay kooxahaasi ka yimaadeen. Moscow waxa ay taageertaa dawladda Suuriya oo ku eedeysay kooxaha fallaagada ah ee ku sugan magaalada Duuma inay been abuureen weerar lagu qaaday oo wata kiimiko sun ah inkasta oo baadhitaano ay hore u samaysay qaramada midoobay ay ku sheegeen in dadkii weeraradaasi ku waxyeeloobay laga helay kiimikada chlorine iyo sarin haddana go'aan kama dambaysa ah lagama soo saarin. laakiinse Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa isku raacay inaanay dhici karin jawaab la'aan la xidhiidha weeraradaasi. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa ku eedeeyay xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson inuu bedelay xaqiiqada jirta isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri warbixintan si buuxda muu aragtay sideed uga faalloon kartaa. waxaa la sheegay in qubarada OPCW xaqiijiyeen wixii ay London ku go'aamisay sunta kiimikada. siyaasiyiinta sida wasiirka arrimaha dibadda Britain Boris Johnson ayaa mar kale bilaabay in uu xaqiiqda qalloociyo. la taliyaha dhinaca ammaanka ee Britain Mark Zerwell ayaa eedeymo cusub ka soo saaray qaabka ciidamada gaarka ah ee Ruushka loogu tababaro isticmaalka hubka kiimikada wata marka ay colaadu jirto. warqadu u diray xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayuu ku sheegay habka ay u isticmaalaan ciidamada Ruushku inay ka mid tahay inay sumeeyaan handaraabyada albaabyada ku yaala. saynis yahanada baadhay kiiskii lagu suneeyey ninkii basaaska hore u ahaan jiray Ingiriiska Sergey Skripal iyo gabadha uu dhalay ee Yulia ayaa sheegay inay tani u muuqato qaabkii loo weeraray. waxa kale oo uu sheegay in xogta emailka Yulia Skripal ay ilaalin jireen hay'adda sirdoonka Ruushku ilaa sanadkii 2013. ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay ka dambeeyeen qarax lala beegsaday goob kubadda lagu ciyaaro ku taala magaalo xeebeedka Baraawe. ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyooday qaraxaasi 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay qaraxa ku qariyeen kuraasida hoostooda ayna u maleegeen ciidamada dawladda. laakiin dad goobta ku sugnaa ayaa sheegay in dadka wax ay soo gaareen dhami ay ahaayeen dad rayida. Al-Shabaab ayaa inta badan waxa ay bartilmaansataa dawladda Soomaaliya oo reer galbeedku u taageero.
halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. maxkamad ku taala magaalada Moscow ayaa soo saartay qaynuun lagu mamnuucayo aaladda internetka ee Telegram ee fariimaha la isugu diro. maxkamadan ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta aaladdaasi diideen inay furaan aaladdaasi hay'adda sirdoonku si uu u eego. saraakiisha ammaanka ayaa sheegtay inay u baahan yihiin inay ilaaleeyaan aaladdaasi haddii ay isticmaalayaan kooxaha argagixisada ahi. dalka hindiyana waxaa ka socda dibadbaxyo lagaga soo horjeedo qaabka ay dowladdu wax uga qabatay una maaraysay 2 kiis oo ku saabsanaa kufsi loo geystay gabdho. dadka dibadbaxaya ayaa sheegay inaan 2 kiisba si saxa loo baadhin. kiis ayaa la xidhiidha gabadh yar oo 8 jir ah oo muslim oo lagu dilay gobolka Kashmir inta la kufsaday bishii January ee sanadkan. 8 nin oo ay ku jiraan 4 askari oo booliis ah ayaa iminka la xidhay. askartan mid ka mid ah ayaa qayb ka ahaa baaritaankii kiiskii hore. kiiska kale ayaa la xidhiidha gabadh 16 jir oo laguna kufsaday gobolka Uttar Pradesh oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. siyaasi ka tirsan xisbiga talada haya ee BJP ayaa aftuubay gabadhaasi oo lagu eedeeyey kadibna kufsaday 9 bilood ka hor. ugu dambayntiina dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga Kongo ayaa sheegtay inaanay ka qayb galaynin kulan ay qaramada midoobay qabanqaabisay oo magaalada Jineefa ka qabsoomaya oo looga gol leeyahay in dhaqaale dhan 1.7 bilyan oo dollar loogu ururiyo. waxa ay qaramada midoobay ku tilmaantay in wax laga qabto xaaladda bani'aadnimo oo daran oo ka jirta dalkaasi. dowladda Kinshasa ayaa sheegtay in qaramada midoobay ay buunbuuninayso xaaladda ka jirta dalka oo ay magaca ka dilayso. hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in dad ku dhow 5 milyan oo qof ay guryahoodii uga qaxeen dagaallo, gaajo iyo xasilooni darri. kumanaan kun oo qof oo reer Kongo ayaa qaxoonti ahaan u jooga galbeedka dalka Uganda. danjiraha jamhuuriyadda dimuqraadiga Kongo u fadhiya qaramada midoobay ayaa BBC-da u sheegay in dowladdu ka carootay qaabka ay qaramada midoobay u samaysay xaaladda dalka. waxa aanu yidhi The level of humanitarian situation was raised to L3. duruufaha aadaminimo ee ka jira dalka waxaa lagu qiyaasay heerka 3 oo ah ka ugu liita dunida oo dhan. taa macnaheedu waxa weeye in jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo la barbar dhigay dalal kale oo ay ka jiraan qalalaase oo dowladnimadii duntay oo wax shaqaynaya baana jirin. waana arrin ay dadku ka xumaadeen. waana sababta aanu doonayno inaanu isugu soo noqonno oo u wada fadhiisanno oo u wada hadallo si aanu shirkan si fiican ugu agaasinno oo uga qayb galno. nasiib darrase waxba waanu isla meel dhigi weynay. We can participate. Unfortunately, we did not reach any common ground on that. intaasina waxa ku eeg dhageystayaal iyo daawadayaalba warkii dunida aan idinku celiyo Mawlid Xaaji Cabdi iyo qaybaha inooga hadhay barnaamijka. aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayuu ahaa inala socodsiinayay wararka BBC-da halkaan naga dhageysanaysaana waa London. maalin wanaagsan dhageystayaal iyo daawadayaal sida aad u dhantihiin. waxaynu goordhow gudagali doonaa barnaamijka dooda jimcaha. waxaynu ku soo qaadanaynaa sida hordhac barnaamijka aad ku maqlayseen khilaafka dhinaca diblomaasiyadda ee ka dhex curtay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxa uu noqday mid aad u xoogaystay. waxaa jirtay in lacag ilaa 10 milyan oo dollar ku dhow in lagu qabtay garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. arrintaasi oo wasaaradaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta siyaabo kala duwan ay uga hadleen. waxaa jirta iyaduna in wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya uu u sheegay warbaahinta dawladda in ay dawladda Soomaaliya la wareegayso ciidamada Imaaraadku tababari jiray ee magaalada Muqdisho ku sugnaa, iyadoo ciidamadaasina la sheegay in lagu kala dari doono ciidamada kale ee Soomaaliya sida uu sheegay wasiirku, isla markaasna ay dawladdu bixin doonto buu yiri mushaaraadka ciidamadaasi. sanadkii 2014 ayay ahayd markii Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya ay heshiis gaareen kaasi oo ku saabsanaa hawlaha la xiriira ammaanka oo Soomaaliya gacan laga siinayay dhinaca tababarka ciidamada, iyadoo Imaaraadkuna saldhig ciidan ay ka sameysteen magaalada Muqdisho. waxa ayaduna jirtay in bishii hore dawladda Soomaaliya baarlamaankeedu fadhi ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, ayaguna ay gees ka galiyeen heshiis ka dhacay waddanka Imaaraadka Carabta oo 3 geesood ah oo ku saabsanaa dekada Berbera. arrintaasi oo la sheegay inay si weyn khilaaf uga dhaxdalisay dhinacyadii arrintaasi ay qusaysay iyo dawladda Soomaaliya. haddaba xageebu ku dambeyn karaa khilaafkan? muxuu yahay
lacagtan maxay tahay lacagtan lagu qabtay magaalada muqdisho macnaheedu iyo weliba sidoo kale qaanuunka iyo sharciyan maxay ka qabtaa lacag intaasi dhan in Soomaaliya garoonkeeda diyaaradaha la keeno iyadoo markaana arrintani ay ku dambayn doonto in arrimahaasi oo dhan iyo meesha ku dambayn doonto ayaynu eegi doonaa barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya xasan sheekh cali nuur oo shahaadada PhD-ga ku haysta culunta xiriirka caalamiga isla markaasna master degree ku haysta culunta difaaca iyo istiraatiijiyadda waxaa sidoo kale wuxuu ku sugan yahay xasan magaalada muqdisho iyo qadka Skype-ka uga jira Abukar Armaan waa political arrimaha siyaasadda ayuu ka faalloodaa waana qoraal wuxuuna horey u ahaa ergeyga Soomaaliya ee wadanka Mareykanka arrimaha Soomaaliya iyo siyaasadda ayuuna ka faalloodaa magaalada Columbus ee wadanka Mareykanka ayuu qadka telefoonka uga jira stuudiyaha BBC-da waxaa ila fadhiya ustaad Xasan Cabdi Xayle oo culunta xiriirka caalamiga bartay isla markaasna horey ugu ahaa la taliye arrimaha siyaasadda mid ka mid ah madaxdii wadanka soo martay waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Maxamed Nuur Gacal oo isna ah siyaasi Soomaaliyeed isla markaasna horey u ahaa wasiiru dawlaha arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya haatanna ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaasna shahaado culunta arrimaha siyaasadda isna ku qaatay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur ee magaalada Muqdisho qadka Skype-ka adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaan jecelahay Xasan arrintan soo baxday iyo khilaafkan iyo sida loo arki karo adigu sida u arkatid iyo waxyaalaha ka dhalan kara inaad banalo wadaagtid bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa guudaha shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan intana daawanaysa su'aashaada anoo ka jawaabi doona waxaan rabaa marka hore inaan u sameeyo su'aasha waxaan rabaa inaan u sameeyo xayndaabkaas oo aan u jeedo waxa aan ka hadlayno waa xiriir dawladeed oo u dhaxeeya dawlad Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka ama Imaaraadka Soomaaliya marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah waxa la dhahaa what's foreign policy maxaa looga jeedaa marka waxay noqonaysaa action reaction and interaction yani wadan baa wuxuu sameeynaya ficil sameeynaya wadan kalena waa u jawaabaya kadibna waxa qadanaya interaction oo wadamo kale iyo ururo kale iyo xoog kale ayaa ku soo biiray markaan hawsha aan ka hadlayno waxay noqonaysaa basically xayndaabka oo marka waxaan galeynaa waxa lagu dhaho culunta siyaasadda ama qaybta lagu dhaho foreign policy-ga haddaan u soo daadego marka arrinkan Soomaaliya iyo Imaaraadka u dhaxeeya lama fahmi karo oo kaligiisa haddii arrinta lagu eego ama lagu koobo Soomaaliya iyo Imaaraadka oo kaliya haddii lagu koobo lama fahmi karo haddii qayb kamid ah waxyaabaha dhacaya sida ciidamada aad sheegteen sida dekada berbero sida lacagta la qabtay haddii la itemization lagu sameeyana hal ciidan si fiican loo fahmi karo marka waxaa la rabaa in loo sameeyo frame good ama xayndaab good oo isku duuban oo arrintan loo akhriyo sida ay u samaysan tahay oo ah dhibaato ka dhalatay bariga dhexe ama khaliijka carabta kadibna u soo gudubtay mataqaana Horn Africa ama Geeska Africa oo wadamo fara badan oo saameynaysa oo Soomaaliya ka mid tahay arrintaasi waxay leedahay wajiye fara badan ay leedahay waji diblomaasiyadeed waji siyaasadeed waji ciidan mid amni mid dhaqaalo mid bulsho ay leedahay marka aan ka hadlayno arrimaha soo dhan aragtidaas soo dhan anagoo og ayay waxay tahay marka inaan gudaha u galno arrinta mataqaana aan ka hadli doono maanta oo ah arrin aad iyo aad muhiim u ah tan kale waxaan rabaa iyadana inaan ogaado oo in dadka Soomaaliya u sheego dalka Soomaaliya guud ahaan adduunyada waxa lagu yaqaan inuu yahay wadan oo guul dareysta hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ama adduunyada badankeed isma weydiiso marka hore wadankani muxuu u noqday wadan guul dareystay su'aashaas anoo ka jawaabaya maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin wadankani markuu noqonayay wadan guul dareystay dhibaatooyin ama cawaamil daakhiliya waxa la dhaho oo gudaha ah inay dumiyeen laakiin aragti kala jirto dhahaysa Soomaaliya waxay u duuntay adoo iga raaliya Dr. Xasan waxa jeclaan lahaa inaad mawduuca dib ugu laabatid oo su'aashida aad okay waa sawada waxaan rabaa marka Soomaaliya dadka Soomaaliya inay ogaadaan Soomaaliyadan maanta duusan sida markay noqonaysay waxay u noqotay sidaan maanta taagan oo kaleeto wadamo ishaysta iyo xoog ishaysta ay ku dhex dhuntay marka maanta mar kale inaan ku dhex dhunno ma ahan marka waxaa loo baahan yahay
haddii aan shalay qaldamanay oo aan waddo khaldaman aan marnay qaabka loo maanad garanay ama loo maamulayo siyaasaddan arrimaha dibadda markaan waa inaan ka fiirsanaa xasan adoo aad u mahadsan macnaha ma waxaad ka wadaa khilaafkan waxaa keenaya habka loo maamulayo siyaasadda ayaa u muuqanaysa inay iska hor keenayso siyaasaddii dibadda iyo siyaasadda dibadda ee dowladda Soomaaliya maya waxaan uga jeedaa macnaha asal aanba sidayna weligeennaba haddaan nahay Soomaaliya markaan ka hadlayno xiriirka dibadda oo Soomaaliya iyo mujtamaca caalamka aan la yeelayno weligeenba Soomaaliyaba wadda sax ma ayna marin markaan waxaan rabaa markaan dabcan weli waxaan ku soconaa waddadii khaldaneed ayaan ku soconaa marka waxaa la rabaa dadkeena markaan inaan gaarno bisayl siyaasadeed oo ah arrintan inaanan sida aan hadda aan ku socon aanan ku socon kadib markay noqoto tafaariiqda iyo sida loo qaadayo qaybaha kala duwan marka akhyaarta kala soo galaan ka jaabi doona waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay xasan sheekh sidaa qadka igu jira waxaan jeclahay isla muqdisho inaan u wareego professor maxamed nuur gacal professor marka laga soo tago siyaasadda aad ku soo jirtay dowladda Soomaaliya la taliyihii ayaa tahay ra'iisul wasaaraha waxaan jeclaan lahay bal fikirka xasan oo qabo adigu maxaad ka aaminsan tahay fikir ka duwan miyaad qabtaa maxay kula tahay adiga في عن وضع عشان Professor Gacal aad iyo aad waxaan kaaga codsanayaa codkaaga naga googa'aya marka haddii ay jirto nidaam signalka telefonka mobilkaaga xayiraya hadduu jiro inaad mataqaanaa aad u yarab sikato meel hawo furana si telefonkaaga codkaaga unu maqlo su-aasha waxaa weeye arrimaha uu ka hadlay xasan sheekh ku aadan arrimaha siyaasadda dibadda inaysan Soomaalidu wanaagsaneyn buu yiri xilliyada la soo dhaafay arrimahaasna ay keenayso buu yiri in ay keeni karto khilaafkan hadda muuqdo oo kale adigu waxa tahay la taliyihii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya arrimahaana si weyn baad ula socotaa arrimaha Soomaalida iyo xiriirka dibadda iyo adiga sidee bay kula muuqataa doodaasi fiicnayn waa salaamaya iyo daawadayaashaba arrinta ku saabsan waayahay iga raalaho professor maxamed nuur gacal waan kugu soo laabanaya adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaan ka codsanayaa farsamada in laynkaas layn ka fiican loo fiirsho haddii professorka la soo gelin karo waayahay aad iyo aad baan kaaga cuudaanaya professore insha Allah kugu soo laabanaynaa ustaad xasan cabdi xayle ayaa studio London la fadhiya ustaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad la socotaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya arrimaha carabta dunida islaamkana si weyn baad ula socotaa khilaafkan isla su-aasha anoo ku weydiin doona khilaafkan hadda ka dhex xalowsan Soomaalida iyo Imaaraadka Carabta oo hadda maraya in la isku jawaabo xitaa baraha Twitterka xitaa ay adeegsadeen qaar ka mid ah xubnaha wasiirada Carabta xagee buu ku dambayn karaa khilaafkan maxaase is leedahay saldhig way u yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan is leeyahay aan jilcino abuka carmaano aga dambeeya jawaabta aan jilcino waayo haddii academically aan doono inaan ka jawaabno bulshadana ma dharjin karno annagana macnaha wax badan tilmaami mayno runtii Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya xiriirkooda waa laga warqabaa wuxuu ahaa ceesho milixu ahaa taas dadka loo sharxima Soomaalida iyo Imaaraadka dana badan isku qabeen Soomaalida waxaan ogsoonahay ilaa sanadihii aan burbursaneen Imaaraadka ay ahayd meelaha misan Soomaalida ay dhaqaalaha iyo ganacsiga ay la sameeyay taas arrin xun ma laakiin marka xiriirka misan sida waa kii dunida afirinay oo xiriirka dawladaha ka dhaxeeya afirinay cawaamil badan isbedel ama waxyaabo factors badan isbedel waxyaabo badan isbedel Imaaraadka anigu waxaan dhihi karaa Soomaaliya xiriirkeeda lahayd ilaa waqtigii dawladii Cabdullaahi Yuusuf la bedelay oo Nuur Cadde iyo doorashadii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay isu daawamareen Imaaraadka dawladda Soomaaliya habbi kama ahayn macnaha maxkamadihii wixii ka dambeeyay dawladda Soomaaliya xiriirka ay la leedahay marna habbi kama ahayn laakiin maalinba meelay soo joogtay laba arrin oo kale Soomaalida ayaan ahayn faraxsanayn Imaaraadku ma aysan ku faraxsanayn arrimaha Soomaaliya sidii u socdaan oo maxay diidanayeen sababta waxaan ogsoonahay dawladda Sacuudiga iyo ayadaba waxay taageerayeen ciidamadii Itoobiya dalka qabsaday dadka waa in taas ogaadaan macnaha dad qaar baa u dhigi kara in dawladda Soomaaliya ciidankaas ay u yeerato caawinayeen ha caawinaan laakiin dawladihii xoolaha bixiyay
ama dowladihii masalan xataa dib u heshiisiintii Soomaaliya ee dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay qabatay oo Cali Mahdi oo madaxda ka ahaa hantida faraha badan waxa baxshay Sacuudiga daba taagnaa Imaaraadkuna way ku lamaansanayeen laakiin mar shiftiya dhacay oo laba waji leh dhinacna Soomaaliya ka isbedel ka dhacay dhinacna dunida carabtu isbedel ka dhacay dunida carabtu waxay mid wixii loo yaqiinay rabiic ama deertii carabeed oo qacamadii faraha badna isbedelay Imaaraadka iyo wadamada masalan khaliijka aad ma aysan wal badan ay ka qabeen Soomaaliyana waxay ku tuumayeen in noocan ma dalka islaamiyiinta ee lala dalsan yahay ay awood ku leeyihiin dawladda Shariif Sheekh Axmed iyo tii Xasan labadaba laakiin waxay soo baxday arrintu markii dagaalka Yemen oo dhacay oo dagaalka Yemen oo arrinta meesha ku soo darsantay oo Soomaaliya laga codsaday in ay soo raacdo wadamada Yemen la dagaalamaya taasaan ogsoonahay oo mesela Soomaaliya markay iska taagtay meel dhexena arrimaha mesela wadamada khaliijka Soomaaliya laga qaadan waayay oo aan ogsoonahay habeenka ka dambeeyay Imaaraadku inaysan nasan iskuna dayisay mar iyo marka ka dambeeyaba dawladda Soomaaliya inay qalqal galido in lagu ciqaabo mowqifkeeda maxay dhexdhexaad u istaagtay maxay mesela Sacuudiga iyo lacagaha loo yaboohay iyo Masar oo taariikh dheer la lahayd ay u soo raaci weyday arrimahaas dawladda Soomaaliya waxaan u maleynaa si oo adkaysi lahay mesela marka waxaad is leedahay mowqifkii dawladda Soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadka ku sheegtay u dhaxeeyay ka qaadatay arrintii qaliijka ayaa inta badan arrintan sabab u ah miya Imaaraadka oo laga yaaban yahay siyaasadaha mesela ay ku dhaqanto dagaalada mesela hadda mesela Iran iyo lagula jiro iyo Xisbullah iyo ururada mesela Yemen lagu tuhmaayo iyo Soomaalida kaalintii la rabay inay ka qaadato waxaan ka warqabnaa mesela badda cas iyo geeska Afrika dhinaca badda Carbeed loo yaqaan Imaaraadku isku balaariyeen suqatari qabsadeen waxay qabsadeen Barbari qabsadeen waxay qabsadeen maxaliyada dekada Boosaaso Suudaan Djibouti waa timaandood bishii Maars iska tuurtay Eritrea waan ogsoonahay inay joogaan Suudaan way kula darsan yihiin marka arrimo badan oo siyaasadeed oo politics ah iyo arrimo caalami ah siyaasad guud aad iyo aad baan soo ku soo laaban doonaa waxaan jeclahay inaan eego martida kale ee barnaamijka ku jirta waxaan ka cudur daaranaa inaan qadka ku laanahay aqoonyahan Abuukar Carmaan inaynu mataqaanaa qadka soo gelino laakiin waa yahay intaynan u wareegin markaa professor Gacal waxaan jeclahay inaan Dr. Xasan Sheekh aan dib ugu laabto waad maqlaysaa Dr. Xasan Cabdi Xayle wuxuu leeyahay arrintan waxa ugu weyn saldhigga u ah waxa weeye in Soomaalidu ay tiri waxaan qaadanayna dhaxaad isagoo sidoo kale ka hadlaya arrintan isballaarinta ku saabsan iyo saameynta Imaaraadka Carabtu adiga arrimahaas ma ku muuqda inay qayb ka yihiin saldhigga ama ubuucda bilowga u ah khilaafkan iyo kala duwanaanshaha aragtida siyaasadda okay horta marka hore waxaan u maadnaqayaa saaxiibka Xayle oo kula jooga oo arrinta si fiican u dhigay waa sidoo sheegay oo wuxuu dhahay aan ubacdo u dhigno aan u galno aniga marka hore waxaan la dirbiga loo xiriirsan aan tubiga u soo noga baahin waa runtiis waxa jirta waxyaaba yani dhibaatadan Soomaali iyo Imaaraadka maanta ka taagan waa dhibaato Soomaali iyo Imaaraadka ka weyn waa geopolitics sida uu sheegay waaye laakiin geopolitics dadka ku cayaaraya ama kooxaha cayaaraya ama ujeedooyinka iyo istiraatiijiyada ay leeyihiin ama ayaa wuxuu yahay siyaabo kala duwan marka anaga haddaan nahay Soomaaliya waa runtii sida uu sheegay waaye in ilaa xilligii maxkamadaha ayaa dhibaatadan soo taagan ama xataa Cabdullaahi Yuusuf waa soo sheegay anigu waxaan aaminsanahay sida uu sheegay ciidamadii Ethiopia ee wadankan yimaaday in fanki iyo xoolihii ku baxay ay qayb ku lahaayeen wadamada khaliijka siday u bixiyeen iyo siday u kala bixiyeen ma naqaano laakiin kulli strategic objective sababtu waxay tahay anaga waxaa la rabaa Soomaaliya haddana inaan ogaano waxaan nahay wadamada Carabta ama khaliijka ee tijaarta ah meesha ay amaankooda ku ilaashadaan nahay macnaha anaga waxaan nahay waxa la dhaho buffer zone waxay rabaan amaankooda inay anaga nagu ilaashadaan oo ah biyo intayna ku soo gelin ayaa la iska moosaa marka meesha biyaha lagu moosaayo oo dhiiqada iyo carrada lagu shubayo waa Soomaaliya marka waxa kale oo ay rabaan markaas ay taas ugu suurta gasho nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ama rajiimka ama dawladnimada ka dhalanaysa waxay rabaan inay noqoto mid ku ah satellite oo ayaga maslaxadooda iyo istiraatiijiyadooda ka shaqeysa waxay rabaan inaan noqono oo ayna isticmaalaan saas darteed markasta oo ay dareemaan Soomaalida inaysan u socon sida ay rabeen inaysan u socon waxay ka shaqeynayaan inay u soo celiyaan Soomaalida laakiin Soomaalidu sida iga raalahow Dr. Xasan dood baa arrintaas laga qabaa dhageystayaasha qaarkood markaynu fikradooda aragnay waynu maqli doonaa waxay leeyihiin sida anagu aynu u soconayo sida Soomaalidu u socoto ayaga ayaa iska leh ma ahan inaan ku qancino wadan ama dal kale
soo doodaasoo kale kama hor imaan karto arrintan okay arrintaas waa waxyaabihii markii hore ay Soomaaliya ku dunto waaye anaga waxa waaye Soomaaliya hadaan nahay adduunyadu waa cabiran tahay waxa jira mataqaana waxyaabo oo dawladaha lagu qiyaaso dawlad kastana meel ay istaagtay leedahay oo xuduud aysan dhaaf karin leedahay anaga marka la fiiriyo dhaqaalaheena iyo siyaasadeen iyo diblomaasiyadeen iyo society-gan iyo nation system-kan iyo political process-ka Soomaaliya ku jirto wadan waxaan nahay oo waxa la dhaho fawliseed ama la dhaho dawlad faashila marka waa madax banaanaanaya marka dhagid waxa la rabaa inaad dhinac kasta isaga filan tahay oo aad ciidankaaga iyo dhaqaalahaaga iyo diblomaasiyadaada iyo waxaaga dhan aad leedahay midda kale waxay tahay adduunyada hadda aan ku noolnahay qarniga 22 wadan isku filan maba jiro adduunyada waxa ka jira wax la dhaho globalization wixii waa isdhaxgaleen waxa isdhaxgalay dhaqaalaha siyaasadda amniga iyo istaraatiijiyadda soo laaban doonaa Dr. Xasan aad iyo aad baad u mahadsantahay dadka dhahaya Soomaaliya waa madax banaanta go'aankeeda oo madax banaantahay waa dad aan faham siyaasadeed oo calaqaadka dawliga aan fahamsaneyn waa aad baad u mahadsantahay waxaan siinayaa professor Gacal Maxamed Nuur Gacal iga raali laho 100% inaan mataqaana naga yara daahday cilad telefoonka khadka Muqdisho waxaan filayaa inaad nala socotay haddii aad nala socon fikirku inta badan wuxuu marayaa in arrintu ay ka bilaabatay Soomaalida dhexaadnimada ay ka qaadatay arrinta qaliijka khilaafkiisii waxa kale oo laga hadlay in loo baahan yahay in Soomaalidu aanay kaliya dihin anaga wax walba isugu filan ay tahay wadan fashilmay sida hadalka loo dhigay waan kugu soo celinaya haddaan nala socotayna waad maqlaysay fikradaha haddii aadan nala soconna bal halkaas baan maraynaa ka sii wad waa mahadsantahay mawjid su'aalaha iyo jawaabaha qaar way dhaafeen laakiin intaan ka soo gaaray ama hadda aad ku dartay markaan ku darsado khilaafka imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya waxna waxay la xiriiraan mandiqada ama gobolka aan ku naalno iyo siyaasadaha ka jiro iyo dawladaha ku hardamayo waxna waxay la xiriiraan xiriirka dawladda Soomaaliya iyo dawladda imaaraadka iyo heerarkii kala duwanay soo maray iyo meesha uu maanta joogo marka khilaafka asalkiisa ama dhumucdiisa waxaan isleeyahay markii loo fiiriyo xiriirka labada dawladood sida wahay waxaa ku dhex jiro dawlado kale waxaa ku dhex jiro hardan kale ama tartan kale oo u dhexeeyo guud ahaan dawladaha carabta iyo Turkiga u dhexeeyo dawladaha khaliijka dhexdooda u dhexeeyo dawladaha deriska aan nahay iyo masaalixdooda taasa waxay keenaysaa marka dawladda Soomaaliya oo weli aan lahayn awood weyn oo isaga xiliso faragelinta waxay u jilicsan tahay ama u nugushahay in la farageliyo marka arrintaas ayaa keenayso sababaha ugu weyna waxay hadda soo bilowdeen markii uu dhacay khilaafkii khaliijka intii ka horeysa waa jirtay dawladda Soomaaliya mar walba in lagu tartamayo arrintii khaliijka ku saabsaneed dawladda Soomaaliya tallaabooyin ay qaaday oo caalamkana ayna ahayd inay dadka Soomaaliyeedna ay ku qanceen oo ahayd arrintii dhexdhexaadnimada kadibna dawladdii gacan siinaysa dawladda Soomaaliya inay yeelan arrinta ku saabsan madax banaanida iyo midnimada iyo arrinta ku saabsan siyaadada dalka waa arrimaha muhiimka ah ee lama taabtaanka ah arrimaha oo aad la socoto ka socoto wadamada carabta oo ka bilaabatay kacdoonkii meesha aan ku naalno iyo dawladda imaaraadka oo ayadu qaadatay go'aan ah dhammaan kacdoonadii carabta in laga hortago sidoo kale dawladda imaaraadka saa la socoto waxaa ugu badan dhaqaalaheeda serviceka waxa ka soo galo wayna isa saameynayaan mandiqada ama gobolka oo arko dawladda kale la tartamayso in arrimada muxuu ahay faragelin lagu sameeyo marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa keenay khilaafka ama ka ahay qayb haddana stagekii koowaad ayuu marayaa weli ma gaarin jiray in xiriirka la kala gooyo ma gaarin heer oo labada dawladood hadda inay kala dacwoodeen ama istaka kala sameeyeen
laakiin adoo iga raaliya professor gacal inkastoo adigu aad hadda waaya professor gacal adoo iga raaliya waxaa jirta lagu maqaalaa in xitaa dowladda imaaraadka carabtu ay dowladda soomaalida ku dacweysay hay-adaha caalamiga ah oo ay ka dacwoonayso in diyaarad lacag siday oo u waday ciidanka imaaraadka tababaraan lagu qabtay magaalada muqdisho oo diblomaasiyadeedii lagu xadgudbay baa arrintaas maqlaynaa adigu waxaa tahay la taliyihii ra-iisul wasaaraha soomaaliya arrintaas ma jirtaa waayahay professor gacal waan kugu soo laaban doonaa qadka oo go-ay awgiis waxaan ka cudur daaranaynaa sidoo kale abukar carmaan oo daqiiqadii ugu dambeysana inoo suurtageli weyday inaanu khadka ku helno waayahay dhegeystayaasha ayaa barnaamijka qayb ka ah oo aynu eegaynaa ra'yigooda iyo sida ay u arkaan qaybta ugu horeysa aynu eegno عبدالله إبراهيم إسماعيل خلافك دولة الصومالية يا إماراتكو وحو بلوضي كلكي دولتها سيلعو اللوبين دالك الجبر دحاد بيتروان نقونيا تاسا هورتا إماراتكو وعروضي حسن نقطة دولة كلو دائما أي كمديهن مروكي عماني يبو جموع عروض دحاد نمدا مركا دولة الصومالية هورتا دادكيدي وحو عبدي يما دحديدي قرن كيدي بحل أباقو هورتا ماركتا يدي بارلمان كيسكو تورتور تيران عرنتنا ويكسو أغاكتي وحاسي عبدي إن أي وحي qarandumisa iska ilaalinayaan marka horeba waxa qalad ahayn in dawladda ciidan kugu dhex samaysato iyadu mushaarka siiso safiirka imaaraadku intuu airport ka yimid muxuu ku keenay inuu lacag bilaa sharciya ka qaado meeshiisa geeyo dabcan wuxuu ku qaban lahaa ilaahay baa naga og laakiin inuu dalka ku diminayo baa ka muuqata laakiin waxa muhiimadeeda leh dawladda Soomaaliya in ay tahay deelas feejigan magacaygu waa Saxardiid Xaasha Ardaale waxaan joogaa magaalada Buurama runtii aad iyo aad baan uga xumahay xiriirka aan wanaagsanayn iyo khilaafka soo kala dhex galay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka kaasi oo runtii ah mid wajiye fara badan leh talaabada ay dawladda Soomaaliya qaadayna runtii waa talaabooyin iyada uun dib ugu soo noqonayo oo dhibaato u geysanaya ilamana ahan inay Soomaaliya joogto waqti ay ka maarantay Imaaraadka waxaana muhiim ah in dawladaha naas nuujiya Imaaraadka iyo dawladaha kale reer galbeedkaba ay dhowrato oo ay ilaashato ayaa muhiima runtiina waxa muhiim ah dawladdu inay fahanto siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirada caalamiga ah ee la leedahay bulshada Imaaraadka oo ay iska xidhaana waxay ka dhigan tahay inay dunida qaybo badan iska xidhayso martidana waxaan weydiinayaa Soomaaliya ma joogtaa waqti ay ka maaranto Imaaraadka aad iyo aad u mahadsan yihiin dhegeystayaasha BBC-da iyo kuwaasi ahaayeen saacadda Afrikada bari haatan waxa ay tilmaamaysaa 5:00 markaa 5:00 ayay tilmaamaysaa iyo qadar 2 daqiiqo ah iyadoo markaana aynu eegi doono gordho barnaamijka inoo sii socon doono halkiisii oo inooga sii socon doono sidoo kale waxaan naga dhageysanaysaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta sida mawjadaha gaagaaban iyo barta FM-ka iyadoo sidoo kalena toos inooga daawanaysaan Facebook su'aalaha aad qabtaan halkan ayaad ku soo gudbin kartaan idinkoo markaa su'aalihiina halkan ugu soo gudbin karaa saacate waa tahay daawadayaal dhegeystayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaashu aynu maqalnay way kala fikri duwanaayeen qof ka mid ah wuxuu qabay gabadhii ka soo hadlaysay Faadumo Ibraahim magaalada Hargeysa waxay qabtay in arrintani ay qayb ka tahay Soomaalida oo sheegatay in dhaxaad ay ka tahay khilaafka qaliish waynu maqalnay arrintaas oo waynu ka hadalnay waxay kaloo ka hadashay in lacagtii magaalada Muqdisho dawladda Imaaraadka Carabta diyaaradii ka socotay sida la sheegay halka ay arrin aad iyo aad u foolxun sida fikirkeeda ay qabtay waliba iyadoo xustay in safiirka arrintaas uu ku qaldana sida hadalka u dhigtay dhageysta kale oo la yiraahdo Saxardiid Xaasha Ardaale isagoo hadalkiisa waxa ugu dambeysay Soomaalidu ma ka maarantaa Imaaraadka Carabta su'aashaas waxaan jecelahay labadaas arrimood laba dhageysta ka hadlay inaan u bandhigo professor Gacal qadka telefoonka magaalada Muqdisho مولد هرتا ما جرتو عيد aan laga maarmi karin iyo cid laga maarmo ma jirto laakiin
xiriirka caalamiga wuxuu ku dhisan yahay mar walba is-ixtiraam iyo kala bedesho adduunkana dawladuhu waa isku xuquuq waana isku waajibaad marka midaana hooseysa iyo midaana sareysa laguma xisaabiyo markii loo qaybinayo waajibaadka iyo xuquuqda ay leeyihiin marka sidaas darteed dawladda Soomaaliya waxaan u malaynayaa inay de xaq u leedahay hadday u aragto dawlad kasta maslaxadda ka soo gelayso iyo dhibaato wayna kala dooran kartaa Soomaaliya dawladda hadda inshallah ayaa ka jirta aqoonsan yahay ururada ay waayahay marka professor gacal waxaan rabaa ma waxaad aaminsan tahay Soomaalidu inay ka maarmi karto oo aysan u baahnayn xiriirkaas iyo taakulayntaas imaaraadka carabta ay wadeen oo aynu ognahay in ay magaalada Muqdisho dhig military ku lahaayeen oo ciidankeedii la sheegay in lagala wareegayo arrintaas Soomaalidu ma iskaga filan tahay su'aashaas oo ka jawaabaya adoo raaliya Soomaaliya waa ka xumahay professor gacal aad iyo aad baan naga xumahay professor gacal waaye aad iyo aad baan naga xumahay dhegeystayaasha qaarkood codkaaga si fiican u maqli mayno waa yahay waa kugu soo laaban doonaa professor gacal aad iyo aad baan naga xumahay waxaan u wareegayaa doctor xasan sheekh qadka skype-ka ee magaalada muqdisho arrimahan dhegeystayaasha ay ka hadlayeen oo ay sheegeen in lacagtii lagu qabtay ay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay ka hadlayeen iyo arrimahaasi oo dhan adiga sidee kula muuqataa doctor xasan okay mar kale waxaan rabaa in haddana hoosta ka xariiqo oo aan idhaahdo mataqaanaa dhibaatadan meeshan ka socota imaaraadka iyo Soomaaliya kaliya ma waxaan ku akhrinaynaa as a geopolitical mataqaanaa gambling laakiin haddaan usoo daadego Soomaaliya usoo daadego dawladda Dr. Gacal wuxuu sheegay saaxiibkay in ay dawladda Soomaaliya ka jirto oo political sovereignty leh oo la aqoonsan yahay oo siyaasad qaanuuniye laakiin arrin kale jirto oo aydan loo baahan yahay oo lagu dar arrintaas oo ah effectiveness dawladdaas ayada ah oo legitimacy-ga leh oo la sheegayo oo siyaadada leh waa sharciyad haysata waa inay ku dartaa sharciyada waxqabad ee dawladdu haddayna sharciyada ayna ku dari karin waxqabad ayna ku dari karin waa dawlad naaqisa waa dawlad oo kala dhiman oo awoodooda ay kala dhiman tahay marka dawlad dhameystiran lama tartami karto intaas waxaa dheeri ah haddii aan dhahno labada dawladood waa same yihiin oo Soomaaliyana waa dawlad Imaaraadna waa dawlad waxaa meesha ka imaan kara haddaan nahay Soomaaliya dhaawac siyaasadeed ama amni ama dhaqaale ee Imaaraadku noo geysto mid lamidan u geysan karnaa su'aashu waxay tahay uma geysan karno saas darteed maadaama ay dhaqaale ahaan naga xoog badan yihiin amni ahaan ay naga xoog badan yihiin siyaasad ahaan ay naga xoog badan yihiin waxaa la rabaa inaan nahay Imaaraadna waa dawlad Soomaaliyana waa dawlad bil qaanuun dawli waa sax laakiin markay noqoto ficil siyaasi markay noqoto saas ma nihin marka waxaa naga soo gaaraya dhibaataan naga soo gaaraysa riskigu wuxuu noqonayaa very high qatarta oo kordhaysa waxaan jeclahay Dr. Xasan adoo iga raaliya inaan dhegeystayaasha horta luqadda Soomaaliga aan adoo iga raaliya aan isticmaalno waayahay saaxiibada kale fikirka halkaas igu hay aan saaxiibada kale barnaamijka ka qayb qaadanaya aan siiyo موبا عليه كرتابة بهذا كوتشرتي بروفيسور قعل حسن يقرأ له كسينيا بروفيسور قعل صاحب كان مقصود كل شيء واد مقليسة هذيكم حي كلها عن التاس دولة داس وحلي أود له موبا عليه كرنا aniga waxay ila tahay markii laga hadlaayo diblomaasiyadda in la dagaalo iyo in xiriirku uu ahaado meesha ugu sarreyso wax u dhaxeeya jiro waxaas u dhaxeeyo macnuhu ma ahan haddii dawladda Soomaaliya ay ka dhiidhisay ama ay diiday qaabka nolola dhaqmaayo nooma cunanmo ama kuma kalsoonin ama kuma nihin haddi waxay xor u tahay ama awood u leedahay in la yiraahdo aan kala joogno inkastoo halkaasba aysan gaarin wax dhibaato oo hadda dawladda Soomaaliya leeyahay dhibaato ka soo gaaraysana ma aaminsani anigu inay jirto sababta Soomaaliya haddaan ay dhibaato geysanayn ama dawladaha kale aan dhibaato u geysanayn
dee ayaguna xaq uma laha inay dhibaato u geystaan halkaasi wahay aad baad u mahadsan tahay waay professor gacal waa mahadsan tahay oo kugu soo laaban doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctor xasan waad maqlaysaa professor gacal iyo doctor xasan meesha ay kala joogaan haye بسم الله الرحمن الرحيم horta دكتور حسن شيخ iyo Mr. Gacal waa mahadsan yihiin laakiin markaan aan isla aadno xagga akademiyada runtii marka la yiraahdo madax banaanida ama sovereignka dawladaha macnaha yaan lagu xadgudbin waa jaartar adduunyada ka dhaxay waa la ogsoon yahay macnaha dawlad walba inay leedahay dalka iyo territory ay ka talada iyo dhulkeeda inay ayada go'aamadeeda siyaasadeed ku fushato aan cidnana macnaha ugu daba imaan waa wax jira laakiin qayb dhan oo taariikhda siyaasadeed waxay qoraysaa masalan hegemoniga dawladaha ay leeyihiin waa eray oo masalan oo siyaasadeed laakiin macnaheedu uu yahay dawlado kale inay ku kontroolaan adoo dawlad ah ama dawlado kale ay kugu leeyihiin masalan haymana af carabiga saas uu yidhahdaa inay arrimaha siyaasadooda ay farageli karaan waxaan ogsoonahay in wax la yiraahdo pressureka ama in la saaro saameyn in lagu sameeyo dawladaha in go'aamadooda ay gaaraan lagu bedelo ama go'aamada ay qaadan rabaan lagu bedelo ama in na soo raacliya misan macnaha la isticmaalo waa garan karnaa laakiin Soomaaliya marka la fiirsho madax banaanideeda sida Dr. Xasan uu leeyahay wali waa naqs iskuma filna oo dhinacyo badan iskuma filna kulliga waan ogsoonahay Soomaaliya ilaa waqtigii dheeraa oo dawladnimada masalan Soomaaliya ee burburtay ma leheen mana qaadan karin intaasoo saameynana lagu sameeyay oo waxaan ka warqabnaa aniga saan masalan dadka qaarkood aan u sheego ama media qaarkood aan u sheego 25 sano oo Mila Zanaawi noolaa waxaana dib dhigay oo nahakiyay waa siyaasadaha Itoobiya waxaan jeclahay in taas macna waxaan rabaa inaan ku soo xiro wadamadan annagu aanan filin oo khaliijka dhibaatada nooga timid waxaan ka warqabnaa go'aankaynii dawladda dhexe ay iska lahayd macnaha uu systemka federal uu yahay aan isleeyahay systemkan federaalka iyo dagaalada shabaab iyo qabaa'ilkan sii kala baxbaxay waa waxyaabaha nol ku soo galay waxaan isleeyahay in مثلا go'aamadii dawladda dhexe in loogu yimid sanadkii hore dhamaadkiisa November waa ogaa oo dawladdan imaaraadku ay ayadu geesinimo geliday in ay Somaliland bixido مثلا dekadii barbari iyo saldhig military in مثلا boosaaso ay la wareegto in maamul goboleedyadii ay ka hor keento dawladdii مثلا markaas taalaka cadeen oo cadeyntu waa loo dawladdu waxay ku astakayday مثلا in barkay waxay doonayeen dawladahan waxay doonayeen in laga laabto mowqifka dhexdhexaadka ah dawladdu gaartay lama qabnay lahaayeen sida laga warqabo markii dambe go'aan baa laga gaaray laakiin go'aankaas intuu la egyahay lama oga laakiin waxaan isleeyahay hadda xataa oo dadka qaarkood ay tuhmayaan lacagahan waa soo dhacday la leeyahay oo waqtiga xun ay soo dhacday dawladda imaaraadku inay ula jeedo ka leedahay ula jeedo ah inay dalka qalqalgelido ula jeedo ah yaa masalan ku soo xiga oo la dooran doonaa haddii jawaari baxo in ay arrimahaas doorashooyinka oo kale inay ku influensaareedo waxaana ka warqabnaa haddaan indhaha iska tirin siyaasiyiin badan oo Soomaaliya Addis Ababa ku xiran siyaasiyiin badan oo Soomaaliya Nairobi ku xiran siyaasiyiin badan oo Soomaaliya waxay ku xiran yihiin dawladaha khaliijka mid aan u soo qaadamayo laakiin kulligood ama Sacuudiga ha noqoto ama Qatar ha noqoto ama ha noqoto intaas oo dhan waxay dhibaateynaysaa in Soomaaliya aysan dhaqso gaarin ee madax banaanin waan kugu soo laaban doonaa soo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan hadda u wareego magaalada Columbus ee waddanka Mareykanka Abuukar Armaan waxaan ka cudur daaranaynaa isfaham waqtiga ku salaysan inuu dooda qaybtii hore uu nagala soo qayb gali waayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay Abuukar dabcan waxaan filayaa inta badan dooda nabada socon haddii aad dhegeysanaysa laakiin ama daawanaysa way fiicnaan lahayd dad la socoto waxa aynu ka hadlaynana waa arintan موضوع كسابسنا واد لسعتي واتن خلافك إمارات كعربتها iyo Soomaaliya hadda ka dhex urtay oo ku saabsanaa inta badan khiyaarta barnaamijka ka qaadanaysa way kala fikir duwan yihiin laakiin waxa laga hadlayaa Soomaaliya khilaafkoodu waxa ka soo bilowday arrintii ku aadineed dhexdhexaad go'aanka dhexdhexaadnimada dawladda Soomaaliya ku sheegtay dad kale waxay ku sifaynayaan in Imaaraadku uu ka dheereeyay faraskiisa iyo madax banaanida uu qatar u galiyay adigu fikirkaaga maxay kula tahay Abuukar soo dhawow ودواعي horta mahadsantiin dhammaantiin waana salaamaya asxaabta kasoo qayb gashay dooda aniga kolleyta saan u arko maqaalana waa ka qoray arrimahan waa xoogaa waa dadka siday u arkaan wax yaraan ka duwanahay horta dawladda dhexdhexaadka ma aha arrimaha oo imaaraadka iyo qatar yani haddaanan been isku sheegaynin
dhexdhexaad waxaa la yidhaha qofka markuu arrimahaas yani miisaanka dhinac u riixaynin ama qof inuu la dareero qofka kale wax ka qaadanaynin markaasaad dhexdhexaad tahay. dhexdhexaad markaad afka ka tiraa dowladda waa afkay ka tiri laakiin in action dhexdhexaadka ma aha. taas waa midda kaleeto arrintan oo DPW imaaraadka badanaa dadkeena kheyr allaha siiye waxaa loo badan yahay dad u fakiraayo mandarkaas hore superficially arrinta u fiirinayo. waa hubaa kolleyto khubaraada meesha joogtay inay qaarkood taabteenaa dhici karto. aniga barnaamijka lama socono haddaan soo dhexgala marka waxaa dhici karta haddii aan hadalkayga kusoo dar wax hore loo yiri waad iga qaban kartaa insha allah si aan waqtiga aan kusii didin insha allah. laakiin ani waxaan u arkaa imaaraadka waa dowlad oo musawira waaye, ma ahan dowlad oo iyada iskeed ku socoto. DPW-na iskeed kuma socoto. waxaan oo dhan waxa waaye part of waxa waaye strategy oo geopolitical waaye, yani waad la socotaan qaarkiina fiilkaas aadba ku jirtaan aan filaya. marka misaal yar haddii aan kusoo dhex tuuraan isleeyahay probably lagama hadlin. waa 2006 haddaa xasuusataan 2006 DPW 6 dekadood oo Maraykan ah ay contract la galeen, basically contract oo mataqaana aan finalized ahayn ana wax la rabo weli inuu Congresska u ogolaado. dood weynaa ka dhacday waagaas. doodaas dadkii ka qayb galay oo congressmen ahaa oo ama dadkii baarlamaanka Maraykanka ku jiray 3 qaybood ay u kala baxeen. qayb waxay u diidanaayeen waa kuwan adiga iska cunsuriyiinta oo u diidanaa war carab ma anaga noo talinayso sida Soomaalida maanta aad uga dhex maqlaysid qaarkood. fikirkaasay lahaayeen qaarna waxay diidanaayeen in lacagihii oo heavy revenue asa ka soo galo waa dhexdii ugu waaweynaa ay kamid yihiin New York, kamid yihiin mataqaana kamid yihiin ii sheegay New Orleans, meelo badan oo saas oo kaleeto adiga caan ah yani oo really traffic badan lacag badan laga sameeyo. dadna taasay lamurma taasay ku tartamayeen waxay dhahaan lacagahan intii dhinaca Soomaalida adoo u wareegaya Dr. Abuukar waa soo noqonaa because waa very important haddii aad yani ogolaato. kuwa saddexaad marka qaybta saddexaad waxay qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan. waxay u diidanayeen DPW because way ogaayeen waxa ay tahay sababta loo abuuray, waxa uu yahay yaa ka dambeeyo, waxaan la qarqarinayaa muxuu yahay, goobahan dekadahan ay qaataan maxaa qasdiga hadafka weyn oo laga leeyahay muxuu yahay. kuwaasaa marka gacan sara maray, kuwaasaa diiday oo ka dhaartay inay qaataan Maraykanka because DPW inkastoo uu amiirka Dubai uu magaciisa ku qoran yahay oo iska private entity ahaan loo treat gareeyo, runtii waxa iskala waa dad calooshoodu shaqaystayaal ah iskala runtii haddaad rabtaan oo really mataqaana maxaa la yidhaha strategy ka weynteena aan aragn annaga waxa waaye tii dollarka inooga dhegan tahay ama tii cunsuriga aheedoo mataqaanaa imaaraadasaan yeeshay imaaraadsan horta nama yeelin. marka tallaabooyinka dowladda Soomaaliya ay qaaday Abuukar mawduucan oo toos u galeynaa tallaabooyinka dowladda Soomaaliya ay qaaday sheegtay in lacagtan ay ka qaaday wadankii soo gashay ciidamadan ay ka qaaday xiriirkan hadda mugdiga uu galay sidee adiga kula muuqataa? walaalow horta waa dadaalayaan ilaahay khayr allaha siiyo laakiin again runtii aan usoo noqonaynaa tii masawirka eedo dacaayadaha iyo aan xagga iska dhigin. lacagahan shalayto iyo darcad uguma horeynin inay imaado, weligeeda imaanaysay. waan ognahay imaaraadka inay ciidan samaysatay, ciidamadaas lacagaa la siiya, dowladda waray u hayso iyo gooray lacagtaas imaado iyo goor la joojiyey. hadday imaan jirto markii hore haatan maxaa marka keenay muranka iyo dagaalka keenay? waa la fashilmay waa yani waxyaalaha ku cadaaday macnaha discoveryga meeshan waa meesha xoogaa dad badan ay ka danqan karaan laakiin runtii in la sheegaa fiican because annaga waqti nooma harin haddii aan hadda runta isku sheegin wadan ma haysan. marka waxaan leeyahay waxa waaye lacagaha markay dowladda ka hadalkeedaba markay bilowday waa markii nalka lagu shiray, markii la ogaaday inay diyaarad soo degayso lacagahaasiiti wado kala ordaya dhacday. marka kala ordaydi waxa waaye siyaasaddiiba awal
tens iska ahdo meel xun taagneed ayaa waxaa dhacday lacagihii hadda la ogaaday waad ogtihiin yani siyaabo badana lacagahaasayta loo ogaan karaa intelligence dadka qaarkiisu annaga noogaga sarreeya meeshaasaa far ku fiiqay marka dawladda meel ay ka noqoto maba joogin waa yani dadkii oo way ogaayeen weligood in waxaan imaanaysa way ogaayeen laakiin kala ordaa dhacday waad maqashay interviewgii yani xataa generaalka uu bixiyey yani waxyaalo badan oo iska khilaafsan laba nin oo dawladda ka mid ah haddaad maanta ka wareysatay issuegaas labadooda iskuma waafaqayaan 5 daqiiqo ma ku heshiin karaan marka hadalkaaga waxaad u dhigmaysaa waxa weeye waa arrintan way ka weynta arrimahaasi oo dowladda Soomaaliya tallaabooyinka ay qaadayso way ku saxantay su-aasha la isweydiinaya dhegeystayaasha qaarkood isweydiinaya waxay tahay ma u babac dhigi kartaa weeye marka adigu markaad iisoo koob 10 daqiiqa inoo hartay asxaabtana waa siin doonaa adoo raalliya igu soo celi su-aasha dowladda Soomaaliya dhegeystayaasha qaarkood waxay leeyihiin ma u babac dhigi kartaa inay dagaal siyaasadeed iyo nuuc kasta la gasho iyadoo laga hadlay saamaynta imaaraadka carabta uu ku leeyahay geeska Afrika oo dhan walaalow horta waxa waaye fiiri dawlad kasto teena gaar ahaan waa inaan leenahay horta istaraatiijiyad siyaasadeed oo consistent ah oo maanta meeshaad ku ogeed berritan aad ugu iman karto waa in la leeyahay mugta ilaa iyo hadda taas nooma muuqato waxa noo muuqda waxa waaye maalin walba maalin cirkaasaan marayna maalin dhulka maalinba siday noo qabataa bahashi loo kala tuuraayo mugta realityga haddii aad rabto waad la socotaan yani dawladda inay tiri imaaraadka waana soo faragelisay raallina kama nihin UNTna laga yiri mugta wal imaaraad kaliya ma ahan dadka ay diilka la galeen Somaliland sidaad ogtahay laba dawladood leeyahay labada dawladoodna isku si looga maqlin that kind of inconsistency marka waxyaalahaas oo kale ay adduunka waxay u sheegaysaa waxaad ka hadlaysaa inaad iska hadlaysaa laakiin aadan lahayn hadaf siyaasadeed waa mahadsantahay Abuukar aad iyo aad baad u mahadsantahay waan ku soo laaban doonaa sidaas iigu jir dhamaantiin dhageystayaasha ayaan u baaqayaa qaybta labaad magacaygu waa Cabdiwahaab Dayib Sheekh Jaamac Cabdigeesi degan xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama aniga waxay ila tahay in imaaraadku meel ka dhacay madax banaanidii iyo xorriyadii dalka Soomaaliya waxana haboon si kasto ay u taag iyo tamar daran tahay dawladda Soomaaliya inay go'aan qaadato oo ay hilfaha u laabto safaaradda imaaraadka carabta ku leeyahay magaalada Muqdisho samaysatana saaxiibo ka wanaagsan oo ay dhaqaale iyo cudud kaleba la wadaagi karto ay samaysato oo ay adduunyada kale u baadi doonto waxaan si khobarada weydiinayaa go'aankaasi in hilfaha loo laabo oo safaaradooda albaabada la isku dhufto xiriirka loo jaro dawladda taagta yar leh ee federaalka Soomaaliya ma awoodaa aad mahadsantiin BBC Soomaali fursadana siisay waa bashka Cabdi Xasan Faarax oo jooga magaalada Muqdisho hadda fikirkayga kon dhiibto doonda Jimcaha aniga waxay ila tahay in Soomaaliya ay marnaba ka maarmin wadamada imaaraadka wadanka imaaraadka carabta sababtoo waxa ka dhaxeeyay cilaaqaad badan muddo dheer waana u baahan Soomaaliya hadeer ayadoo tabar yar inay saaxiib la sii ahaato sababtoo Soomaaliya iskuma filno markii taas la sii eegana imaaraadka carabta waxay ka qayb qaadanayeen tababarada ciidamada Soomaaliya oo ciidamo mugle ay u tababareen oo Muqdisho iyo gobolada qaar degan marka waa loo baahan yahay xaaladana lagu dhameeyo wada hadal laakiin ma aaminsani in lagu dhameeyo xaaladda wadamada labada wadan inay si kala go'aan ama cilaaqaadkoodu kala go'o waa in wax walba miiska lagu dhameeyo howlaha hore u socdana meeshii laga sii wado waayahay waxaan jeclahay daqiiqado yar baa inoo haray waxaan ka codsanayaa inay isoo koobtaan adinkoo raalliya waxaan jeclahay inaan u wareego magaalada Muqdisho Professor Gacal hadda dhageystiye ugu dambeeyay wuxuu ka hadlay arrimaha militariga iyo saamayntii ay ku lahaayeen dawladda Soomaaliya adiga iyo fikirkii iyo qofkii hore dhageystiye kale ka soo horeeyay magaalada Boorama Cabdigeesi ka soo yiri ma la awoodi karaa in xiriirka toos loogu jiro oo kale arrimahaas adoo ka jawaabay adoo noo soo koobaya maxay kula tahay Professor Gacal Professor Gacal waayahay waa qadka waxaan aad iyo aad baan u cordaaranaya waayahay aan u wareego isla Muqdisho Dr. Xasan Sheekh
actually sida saxda ah horta ninka London kula jooga iyo ninka jooga Mareykanka oo hayo labadaas ninba si fiican u dhigeen marka arinta waxaan ku soo koobayaa saddex arrimood ku soo koobayaa arinta koowaad waxay tahay horta dhibaatadan waa inaan u aragnaa inay tahay hawl caalami oo socota waxaanan aaminsanahay sida uu sheegay ninka dhahay Carmaan ee jooga mataqaan oo hayo inuu si fiican u sharaxay kuma laabanayo waxaan kaliya u soo laabanaya laba arrimood ah imaaraadku sida ay noola dhaqmayaan saxmiya iyo anagu san uga jawaabayna aniga xaqiiqo ahaan ka Soomaali ka muwaadin Soomaaliya waxaan u arkaa imaaraadku sida ay noola dhaqmayaan si sax ma aha waxay ahayd inay sida noola dhaqmayaan si ka fiican noola dhaqmaan laakiin hase yeeshee annaguna haddaan nahay Soomaali ficilka siyaasiga ah ama falka siyaasadeed ee imaaraadku sameynayaan sida aan uga jawaabayno sax ma aha tusaale ahaan مثلا ما ندود واحد عذي ربورك العجا على الشيء العجتها سيد قف كسر صومال أوجيه العجها إنه مالا بدني نوجي مادين وضم بدني كي مادين مرة فرب بدني وجي مادين وأنا وحليس أوجيه ضدك صومال أنا وحكي صن مجران مركز السبب مجرين كوكلف يسد دولة الصومال ده إن أنت لمن كي داردي للجوجي أو بورسوين كي لفرو أو كاميرا اللي كانوا أو للدادي أو لفظة حدي أو عربتي نكى عرب كها ماشى الصوت يقول ده سيدا سقاب كاس بشع أو فول حمضة oo waliba ay qabteen hay'adii aan mataqaana aan ku shaqaleen ay qabatay arinkaasi waxa weeyaan waxay tusinaysaa haddaan nahay Soomaaliya waan dulminay laakiin dhaqankeenu inuu yahay dhaqan caruureed siyaasadeed inuu yahay bay tusinaysaa waxa kale oo iyadana meesha ku jirta ciidamadan ay tababarayeen waa la ogaa iyo wax joogo ahaa ciidamadan horta ay tababarayeen ciidamo iyo saldhig imaaraadku lahay ma aha saldhigan waa saldhig ciidamada Soomaalida ay lahaayeen waxay yiraahdeen ciidankiinaan tababaraynaa okay haday tababareen waxay aad markay ciidanka tababaraan in ciidanka laga wareejiyo laakiin sida dhacda waxay tahay in ciidanka ayagu ay heestaan oo ciidanku safarada uu ku xiran yahay oo ciidankaas uu ku ahaan wasaaradda arrimaha dibadda uu ku jirin taas khalad ahayd waxa kale oo khalad ahayd haddii ay dhacayso oo leey ciidanka waa laga qaadayo waxa laga sameeyay waa saldhigi waa la wareegaynaa inuu sheego wasiirka gaashaandhigga ma ahayn hawshaas waxa iska lahay wasaaradda arrimaha dibadda iska lahayd marka iyaduna waa dhaqan kale oo dawladnimo oo naaqus marka meeshii waxa yaala laba arrimood oo mid kale ay ka xun tahay waa sida imaaraadka uu noo dhaqmaayo oo aan si fiican ahayn iyo sida aan anaguna uga jawaabayno oo aan si fiican ahayn marka labadaas oo la isku daray waxay keenaan dhibaatadu inaan sii galno marka waxa la rabaa inaan la nimaado Dr. Xasan Sheekh aad iyo aad baad mahadsan tahay Professor Gacal ayaa qadka hadda ku soo laabtay asagaan siinaya Professor daqiiqad adoo igu soo koobaya arrintan haday sidaan ku dambayso maxay ku sii socoto maxay ku dambayn kartaa Dr. Xasan waa maqlayay marka ugu horeyso waxaan rabaa sharci ahaan markii la yiraahdo dawladda Soomaaliya madax banaanideedu waa dhameystiran tahay wax ka dhiman ma jirto laakiin anagu ka Soomaali ahaan markaan u hadlayno waxba naga dhiman iyo waxba naga qaldan waa dhigi karnaa gudahayna laakiin adduunka markaan la macaamilayno ama la dhaqmayno wax naga dhiman iyo wax naga naaqis horta ma jiraan midda labaad imaaraadku sida dawladda Soomaaliya ay ugu baahan yihiin ay dawladda Soomaaliya ugu baahan tahay laakiin waxa lagu heshiinayo ama wax lagu kala lagu macaamilayo waa inay noqdaan qawaaniinta adduunka u taalla iyo habka ay dawladuhu ku wada dhaqmaan ayaa habboon qodobka kale dawladda Soomaaliya kow ma ahan in xiriirkeeda iyo ayada iyo dawlad kale oo isku xumaado horey u soo dhacday dawladda Ingiriiska oo joogtiin ayaa hadda ka hor xiriirka Soomaaliya kala goosatay laakiin xilligaas ma leh Soomahan xilliga Soomaaliya sida hadii maanta sida joogto isma leh Soomaha professor aynu waaqici ahaan ka hadalno ka goosatay dawladda badan ay ka goosatay waqtiga la joogo iyo dadku sheeyihiin shuruucdii adduunka iyo dawladihii isma bedelin waa sidii waqtiga ugu aad baad u mahadsan tahay professor Gacal waa mahadsan tahay waayahay dhageystayaasha aan ku laabto aad iyo aad baa waxaan professor waqtiga cariiri igu ah dhageystaha kale السلام عليكم BBC magacaygu waa Falastiin Khaliif Yusuf waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho hadii aan fikirkayga ka dhiibto mowduuca khilaafka diblomaasi ee u dhaxeeya Imaaraadka iyo Soomaaliya waxa ay u muuqataa mid isa soo taraya haba ugu darnaatay lacagtii malaayiinka dollar ahayd ee lagu qabtay garoonka magaalada Muqdisho taa oo shaki badan gelisay xiriirkii labada wadan ee muddooyinkii u dambeeyay sii xumaanayay waxayna ila tahay lacagta Imaaraadka uu soo galiyay wadanka mid aan nidaamka iyo sharciga waafaqsanayn maxaa yeelay wadanka dawlad ayaa ka jirta ayadana looga baahan yahay in ay u soo maraan wixii ay soo gelinayaan balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah
xiriir ganacsi oo aad u weyn ayaa kala dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka sidee wax looga qaban karaa in aanay saameyn ku yeelan khilaafkani waad mahadsantihiin BBC waayo adiguna aad baad u baaxsantahay dhageystayaasha kale waan ka cudur daaranaynaa waqtiga aad cariiri inoogu ah iyo martida kale barnaamijka qayb qaadanaysa xasan cabdi xayl ayaan jecelna ku soo koobo dhageystahaasi wuxuu ku soo koobay su'aashiisa aad maqlaysay ugu dambeysay ugu dambeyntii adoo ii soo koobaya matalayana saaxiibadaada barnaamijka qayb qaadanayay halku muxuu ku jiraa markaa بسم الله الرحمن الرحيم هذا waxaan soo بسم الله aan hadda ugu bilaabay waxay tahay rag khubaro ah meeshan ka hadlay Abuukar Armaan iyo Dr. Xasan iyo Gacal fikradaha ay soo jeediyeen waxaan xur ah horna loo soo jeediyay dawladda siyaasadeeda arrimaha dibadda inay istaraatiiji u yeesho waa mid Soomaaliya maanta waxay ogtahay waqtigii gumaysigii Talyaaniga iyo Ingiriiska ay yimaadeen halka wuxuu yahay midalan in Soomaalidu isdhigaysato dadka aqoonta leh ay ka faa'iideysto way aad u maasan tahay inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii waxa martida ka qayb qaadanaysa oo mahad celinaya waqtiga cariiri inoogu ah waxa inoo ballama caawa hadii aan leeymo 9 fiidnimo inta ka horeysa nabadgelyo